بيح عبدي ururada muruqmaalka ee xamaalka dekedda magaalada Berbera ayaa maanta mudaharaad salmiye iyo shaqo joojin ka sameeyay gudaha dekedda magaalada Berbera iyagoo ka cabanaya in qaybo kamid ah shaqadoodii ay kala wareegtay shirkadda dekedda Berbera maamusha ee DP World oo kaashanaysa gudida boardka ee dekedda magaalada Berbera kadib markii ay shaqada joojiyeen isla markaana ay halkaasi ka sameeyeen isu soo bax ayaa waxa loo dalbaday ciidamada ammaanka ee gobolka saaxil kuwaas oo dekedda ka soo dareeriyay muruqmaalkan gadoodsanaa muruqmaalkani ayaa gaadiidkooda iyagoo wata jidadka waaweyn ee magaalada Berbera ku soo wareegay iyagoo ku qaylinayay eraya ay ka mid yihiin dooni moyno DP World iyo shaqadayada faraha nooga qaado kadibna waxa isugu soo biyashubteen xarunta maamulka dawladda hoose degmada Berbera iyagoo halkaasi ka goobayay maamulkii degmada oo xilligaasi aan ku sugnayn dawladda hoose qaar kamid ah muruqmaalka gadoodsan oo iyagoo halkaasi aan wax kaga weydiinay cabashadooda iyo waxa ay ka mudaharaadayaan ayaa sida tan ku jawaabay halkan waxa kala hadlaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu leenahay naga soo gaadhi makan dekedda haysta DP World anagu xamaalkii geelaha u nahay ilaa soo jireemaanay ilaa 60 baa ka shaqeynay shaqadeedii bay nagu haystaan dad muwaadiniin oo nahay shaqadiina ka tagay leeyin lamanayna shaqaaleyn haday doonayaan DP World in lagu shaqeyno shaqaalaha sida laamii hore dekedda ula wareegtaan oo la wareegto hadii kalena shaqadeeda faraha nagala baxdo sidaas aan leenahay ana nabadgeliso shaqadeeda DP World sheegayna madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi xudiid waxaanu sheegaynaa shaqadayadii إلا صوري أي صورتي DP World هذي صورتين ودو قادر ما ينو كم بدو قادر قال مرقبال كده كده بربنا قال عمال أيامنا يس وحنو هذا الشيء إن أنا لو دو قادر طالين وإله شمرية الصومالي لأن موسى بيحي عبدي وحنو شيء يعني وحن هاي إنه ذا واحد نكيا وجوه جورجي سعد فريش تكتب براها بكا وحكوا لي مدح وين موسى ماشي هذا وادي ريالها نبدي DP World واحد كنت لا سد العوام والحين كبري بكا كوسا فريسان الرحمن الرحيم halkan waxa ka sheegaya madaxweynaha sharafta leh in waxaan afkiisa ka soo bixin in lagu maamulayo raxiin halkan waxaan madaxweynaha uga sheegaya salaan qiimo badan waxaan halkan ka cadeynayaa inaan amar aan ka soo bixin oo wasiirka la yiraahdo ganacsiga inuu waraaq soo saxay madaxweynaha aan ka soo bixin been fariin halkaasa shaqada ka dareeriya geelle halkan ay dagaal ka dhacay marka 400 sano oo ku noolay madaxweyne inaad soo gacan gelisay gobolka saaxil oo wax ka qabato ayaanu rajaynaynaa bismillaahir rahmaanir rahiim madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi haday ka dhacdo waxaanu leenahay geesta kale maamulka hay'adda dekedaha Somaliland iyo maamulka gobolka saaxil iyo ka degmada Berbera ayaan midnaba ka hadal dhacdadan ay gadoodka ka sameeyeen muruqmaalka dekedda Berbera oo maalmihii u dambeeyay warbaahinta marinaya cabasho la xidhiidha in qaybo kamid ah shaqadooda ay doonayaan gudida boardka ee dekedda Berbera inay ku wareejiyaan shirkadda DP World ee dekedda Berbera maalgashiga ku haysata maxamed cabdilaahi soo fadhiistay Star TV Berbera